بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تابه الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ilaahay tabaaraka wa tacaala allahayna abuuray ee ina uumay ee nolosha adduunyada aan joogna inagu daaqay asmaadiisa wan wanaagsan waxaa ka mid a magac la yidhaahdo alghafaar ama alghafuur. marka uu ilaahay casa wajalla uu leeyahay ghafuur baan ahay ama ghafaar baan ahay macnaheedu waxa weyaan waa allihii dhaafitaanka badnaa. gaf kastoo addoommuhu ay galaan hadday ilaahay xaggiisa u soo noqdaan ilaahay jalla wacalaa wuxuu saaxiib u yahay inuu addoomihiisa uu dunuubta u ka dhaafo. ilaahay marka uu yidhi anuu ghafaar baan ahay addoonkuna markaa waa addoon la yidhaha magaciisa dembiile ama dembi badane. alcabdu lkhaati addoonkii gafayey laanna gafkan aada galaysid ayaa keenaya sifadan maaragtana ilaahayna inuu noqdo ghafuur. saddex dunuubna way ugu horeysay baa la yidho khalqigu ay galaan. saddex dembi ibliis baa galay oo ibliis calayhi lacna ayaa ku dhacay. dembina nebi aadam baa ku dhacay calayhi salaam. dembiga saddexaadna labadii wiil ee aadam uu dhalay haabiil iyo qaabiil baa markaa ku dhacay dembiga saddexaad. dembiga ibliisu ku dhacay wuxuu ahaa waad ka dheregsantihiin oo qisaska qur-aanka ilaahay casa wajalla inoogu sheegee markii ilaahay casa wajalla malaa'igta uu ku amray inay aadam calayhi salaam ay u sujuudaan ee malaa'igtu ay u sujuudeen nebi aadam calayhi salaam. sujuuddaasina cibaado maahayne waxay ahayd tashriif ay nebi aadam calayhi salaam ay sharfayaan ilaahayna ay ku caabudayaan ay ku raaligelinayaan bay ahayde ibliis calayhi lacna isagu malag mu ahayne laakiin jin wuxuu ahaa malaa'igta dhexdooda ku nooloo ilaahay dhulkaa ku caabuda samaawaadka ilaahay ku caabuda ayuu ahaa. deena ibliis calayhi lacna wuxuu iska diiday aadam inuu u sujuudo markii la weydiiye lagu yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta min alcaaliin qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin. waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay meelo fara badan oo qur-aanka ku taala lagu sheegay. khalaa'iqdii samaawaadka ku nooleyd ee malaa'igta la odhan jiray aadam way u sujuudeen oo amarkii ilaahay way qaateen oo way fuliyeene ibliisow adiga maxaa kaa reebay aadam inaad u sujuuddo ood amarkaa u diiday markii lagu yidhi waa kii yidhi ana khayru minhu anaa ka khayr badan aadam calayhi salaam
sababtaan uga khayr badanahayna waa maxay khalaqtahu min tiinin wa khalaqtanii min naar anigana dab baad iga samaysay isagana dhoobaad ka samaysay buu yidhi aniga waxaad iga abuurtay dab baad iga samaysay dab kaa'inaadkan aan ku dhex nool lahay inoo muuqda afarta koonkan ilaahay abuuray afarta maaddo ee ugu awooda badan maaddo ka mida laga abuuray ibliis baa la yidhi biyaha iyo dabka iyo birta iyo dabaylaha afartan maaddaa koonka ugu awood badan baa la yidhi oo birta xadiidka waxa ka adag dabka ayaa ka adag dabku xadiidka uu dhalaaliyaa dabkana waxaa ka adag biyaha ayaa ka adag biyuhu dabka way damiyaan biyahana waxaa ka adag dabaysha ayaa ka adag oo dabayshu biyaha way qaadaa way xambaartaa marka ibliis calayhi lacna wuxuu eegay bay culimmadu yidhaahdeen maaddada isaga laga abuuray iyo maaddada nebi aadam laga abuuray buu isbarbar dhigay markaas oo aadam calayhi salaam isaga maaddada sideedaad baa laga abuuray marka kaa'inaadkan la eego tiin dhoobo laysku gegey caro laysku geegeeyey oo adduunyada meel kastoo cara ay taallo bini aadamku siday u kala duwan yihiin ee abuurkoogu u kala jaadsan yahay waxay daliil u tahay in aadam calayhi salaam ciid keliya aan laga abuurine bal caro fara badanoo arlada dusheeda malaa'igtu ay ka soo qaadeen aytoo laysku keenay baa nebi aadan laga abuuray calayhi salaam marka waa maaddada sideedaad qiyaastii saasaa culammadu yidhahdaan ama ibliis isaga maaddada saddexaad baa laga abuuray dabka waxaa ka adag biyaha ayaa ka adag dabka waxaa ka adag biyaha ayaa ka adag biyahana waxaa ka adag dabaysha ayaa ka adag marka ibliis waxa uu leeyahay aadam anaa ka khayr badan oo sidee nebi aadan uga khayr badan tahay sidanaan uga khayr badanhay buu yidhi anaa ka khayr badanoo aniga waxaad iga samaysay dab baad iga samaysay isagana dhoobo ayaad ka samaysay ana kelmadda ana hadduu khalqigu ay isticmaalaanna waxay ka dhigan tahay marka xuduuddoodii bay dhaafeen bay ka dhigan tahay ana waxaa isticmaala keliya ilaahay unbaa isticmaala ana alcasiiz ana aljabbaar ana almutakabir ayna almutakabbiruun ayna aljabbaaruun ana almutakabir khalaa'iqda banka qiyaama ilaahay markuu maalinka qiyaamaha uu duubo samaawaadka markuu duubo araadiinta duubo khalqigoo dhanna uu wada laayo ayuu ilaahay odhan doonaa ana almutakabir ka kibriyaaga u saaxiibku waa anigee ayna almutakabbiruun aawe kuwii kibirka badnaa buu ilaahay odhan doonaa ana aljabbaar jabaruutiyadana aniga ayaa u saaxiibe ayna aljabbaaruun kuwii adduunka dusheeda ku qooqi jiray ee kibirka badnaayee jabbaariinta ahaa mee baa ilaahay odhan doonaa marka lafdigan ana waxaa loo ogol yahay keliya waa ilaahay baa iska leh allah baa iska leh xuduudda markaa khalqigu ay leeyihiin waa maxay xadkaaga ha dhaafin adigoo addoon baa tahay addoonnimadaada ha ka tallaabino xuduudda ilaahay faraha ha la gelin alcizu izaari waalkibriyaau ridaa'i faman yunaasicunii minhumaa cadabtuhu xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa alcizu izaari cizigu guushu baa ilaahay yidhi waxa weeyaan waa go-aygii weeyaan waalkibriyaau ridaa'i alcizu izaari guushu waa guntigaygii baa ilaahay yidhi waalkibriyaau ridaa'i kibriyaaguna waa go-aygii anigu aan iska lahaa baa ilaahay yidhi labadaas sifa ninka iigu yimaadee igula dooda baa ilaahay yidhi waan cadaabayaa baa ilaahay yidhi marka ibliis xuduuddiisii buu dhaafay marka xadkii buu dhaafay waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah lidalika ana waa manhi kelmaddaas nebigu sal alla alay wasalam fi saxiixayn waata ku taalla saxaabigii markuu u yimiday uu yihi man abu dar buu ahaa abu dar alghifaari isagoo nebigu jooga gurigii maaragtaanayna adeertii faatima bintu cabdimanaaf oo la jooga ayuu abu dar albaabka garaacay markaasuu nebigu yihi man waa ayo waa kuma markaasuu yihi ana markaa buu nebigu yihi ana kaannahu karihahaa nebigu ereyga in la isticmaalo uu karahay uuna dhibsaday waxaa sunno ah haddaad aqalka timaadood eridda garaacaysid inaad tidhaahdid ana maaha waa inaad magacaaga sheegto fulaan ibnu fulaan baan ahay hebel hebel baan ahay ana kelmaddaasi khalaa'iqdu inay isticmaalaan xeer uma leh marka ibliis dembiga u horeeyu
galay waxay ahayd waa kibir, uu kibray, uu qooqay. ana buu yihi marka ana. dembiga labaad ee la galay waa dembigii nebi aadam calayhi salaam uu jannada dhexdeeda ku galay. dembigaasi muxuu ahaa? dembigaasi jannadii baa la geliyey, zawjadiisii xaawaana ilaahay casa wajalla uu ku daray. markaasaa lagu yihi jannadii waa taase ku waarya baa lagu yidhi, ku waarya. fakulaa minha xayثu shi'tuma walaa taqrabaa hadihi الshajara fatakuna min الظaalimiin. ilaahay jala wacalaa qur-aanka waa kii noogu sheegaya lahaa waa tahaye jannadii gala baa lagu yidhi, nicamteeda iyo wixii barwaaqo iyo midho aada kula kulantaan oo dhanna cuna baa lagu yidhi, kuna noolaada halkaas, weliba ku gaajooni maysaan dhexdeeda haddeetoolo, kuna haraadi maysaane, laakiin geedka ha u dhawaanina baa lagu yidhi. haddaad geedkaa u dhawaataan daalimiin baad noqoteen baa lagu yidhi, waad dulmideen, naftiinnii waad ku xadgudubteen, xuduuddii laynagu talagaleen waa soo dhaafteen baa lagu yidhi. marka dee ibliis muu hadhayaa? ma hadhaye, halkaasuu nebi aadam iyo xawaa intuu ugu tegay ayuu tasabay, uu u dhaartay dhaar beenbeena. markaasuu ku yihi geedkan laynaga reebay cunidiisa, fawaa'idda uu leeyahay baan inii sheegaya, haddaad cuni lahaydeen an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiin buu yihi. haddaad geedkaa cuni lahaydeen laba midun baad ahaanaysaan, imaa inaad malaa'ig noqotaan, imaa inaad jannada ku waartaan. bini aadamkuna inuu noolaaduu iska jecel yahay mise inuu dhinto? ya oday 100 jir haddaad tirahdid waad sii socotaa ka waran, maya buu ku leeyahay waaban qooqanahay buu koran oo guur baaban rabaa iminka. nolosha ayaan jecel lahay, dhimashada bini aadamka uma jeclo, dhimashada waa ka baqnaaba. laba dhinac qofka bini aadamku kama gaboobaan baa layidhi, xirsulmaal wa tuulu lamal baa layidhi. xirsulmaal, lacag jacayl, inuu qofku dhaqaalo helo, dhaqaalo sameeyo uu jecel yahay mar walba, oo dhaqaalihiisu ay kobcaan. iyo tuulul amal, inuu yidhahdo inuu qofku hidadila dheeri, waan noolaan doonaa, waan gaari doonaa, waan dhisi doonaa, waan dhaqi doonaa, waan dhali doonaa. tuulul amalka qofka bini aadamku tahana kama gaboobo baa la yidhi. labadaa ninka qofka bini aadamku waa ka shaab, waa ka dhalinyaro. marka qof weyn haddaad lama yidhahdo waad sii dhawaateen lama yidhaahdo, waxaa la yidhaha maa sha allah cimriga ilaahay uu kuu barakeeyo baa la yidhahdaa. marka aadam calayhi salaam isaguna gafkaa wuxuu u galay baa la yidhi inuu sii noolaaduu iska jeclaa, waana bani aadam baan nahay kulligeen. aadam calayhi salaam waa aabaheen, innakana maaragtane sifadaa nolol jacaylka way nagu jirtaa mar walba. haddaad geedkaa cuni lahaydeen buu ku yidhi, imaa inaad ahaataan laba malag oo halkaa haddeetool aad ku noolaataan, imaa inaad jannada dhexdeeda ku waartaan. dembiga labaadi kaabuu ahaa, dembiga ibliis uu galay kibir buu ka dhashay, kibir. laakiin dembiga nebi aadam uu galay waxau ka dhashay waa ashahwa. shahwad waa maxay? waa ha noolaatin, wax fiican ha heshi, sida si dhaanta ha gaadhin. ibliis amar buu jebiyey, amar ilaahay buu ibliis jebiyey. aadam calayhi salaam isna amarka wuu jebiyey, labaduba amarka ilaahay way jebiyeen, laakiin niyadda amarka loo jebiyey baa kala duwan. ibliis amarka wuxuu u jebiyey waa kibir, uu kibray, uu qooqay, wuxuu ana khayru minhu. walaakiin aadam calayhi salaam wuxuu amarkan u jebiyey wax kale maha isagu, bal ha noolaatidun. beenna waa loogu dhaarto, waa la dagay. wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin, wuu u dhaartay dhaar beenbeena. xataa nebi aadam kuma degdegin ninka inuu dhaartiisa aqbalee. ummunaa xawaa calayha asalaam ayaa ku tidhi, mar kula tahay aadamow inuu jiro addoon ilaahay been ugu dhaaranayo? markaasuu hi may wallaahi waan macquul ahay, sidee been ilaahay loogu dhaaran? marka ninkan isagaa naga da-weyn bay ku tidhi, dhulkan oo dhan ilaahay ku caabuday oo ku noolaan jiray, isagaa naga khibrad badan, oga aqoon badan, waa kana inoo dhaartay, han iska cunna geedka bay ku tidhi. dembiga labaad waa kaa nebi aadam ka dhacay, shahwa, ha noolaatin. laakiin dembiga ibliis kibir buu ku salaysnaa, kibir. marka qofka hadduu kibir uu la yimaado waa khatar weeyaan. laakiin dunuubtan kale qofka kaga imanaysa dhinaca shahawaadka
matalan macsiyu ku dhacay ama wax xaaraanaba ku tegay ama zinu ku dhacay ama maaragtaanay sidan uu sameeyey dunuubtaasi laga yaabo qofku inuu ka toobad keeno oo dee nebi aadam calayhi salaam baa ka toobad keenay laakiin ibliis calayhi lacna kama toobad keenin dembigu galay bal khalqi dhan baa ka tartirmay la yidhahdo shayaatiin oo khalqiga bani aadamka wanaagsan inay lumiyaan iyaguna ku dhaarto ku talagalay lana dembiga uu galay aabahood ibliis dembiga uu galay ayaa ku salaysna kibir dana markaa iyakiina halkii bay mareen way la raaceen dembiga kale saddexaad ee arlada dusheeda lagu galay waa dembigii labadii wiil ee nebi aadam uu dhalay ay midkood uu galay uu walaalkii ku gafay dembigaasina wuxuu ka dhashay xasad xasadkuna waa maxay marka la macneeyo waa nicmadan walaalka uu haysta ilaahay uu siiyey oodu quuri weydid oo tiraadid muxuu nicmadan ku helay ninkan uma qalmee markaa sidaa aad tiraadid waxay ka dhigan tahay cataagii ilaahay baad daliilaysaa waxbixista ilaahay casa wajalla uu bixiyey ayaad daliilaysaa oo waxaad leedahay macnaha ilaahay muxuu meeshan wax ugu bixiyo ninkan wax u siiyey ninkani nicmadan uma qalmee dembiga intuu leeyahay markaas nebi aadam calayhi salaam zamankiisii maadaama bani aadamku ay tarmayeen waxaa ilaahay u idmay oo shareecadiisa ka mid ahayd bay culimmadu yidhahdeen xawa markay ilmo qaadaba laba ayay iyay dhalaysa laba mataana ah wiil iyo gabadh qaabiil waxaa la dhalatay gabadh haabiilna waxaa la dhalatay gabadh afartaasi markay qaan gaadhaan ayaa markaa isweydaar la isugu guurin jiray oo qaabiilna wuxuu guursanayaa gabadha haabiil la dhalatay haabiilna wuxuu guursanayaa gabadha qaabiil la dhalatay saasaa markaa bani aadamku way tarmayeen oo kutubta qaar waxay qortaa nebi aadan calayhi salaam ma dhiman baa la yidhi ilaa uu arko 40,000 oo durriyadiisii ah kadib uu dhintay baa la yidhi dana markaa haabiil gabadh isaga waxaa la dhalatay aad aan u qurux badnayn halka qaabiilna ay la dhalatay oo mataantiisu ay ahayd tu aad u qurux badan xilligay markaa afartoodiiba wada qaan gaadheen ayaa markaa nebi aadam calayhi salaam uu soo fadhiisiyey wuxuu yidhi maasha allah afartiinniba waad qaan gaadheene isweydaar baa markaa laiskugu dhisayaa laiskugu kindhisayaa qaabiil baa diidoo yidhi may ta aniga ila dhalatay way qurux badan tahee anigu mataantayda un baan guursanoo ku noqone haabiilna ta isaga la dhalatay ha guursada buu yidhi laana taydaa ka qurux badan buu yidhi markaa nebi aadam calayhi salaam wuxuu yidhi may sharcigeenni maaha may iyo may aadam uu ka carooday baa la yidhi oo deedna xajku iska qabtay markaa baytullahi alxaram buu iska tegay ila kacbada xaramku waa soo jireen ilaa zamankii nebi aadam calayhi salaam intuu nebi aadam calayhi salaam oo xaramka ku maqnaa ayaa waxaa markaa loo bandhigo layidhi qaabiil lagu yidhi waniya waxaana isku haysataan waa sharci ilaahay baa soo dejiyey sharciga in la raaco weeyaan ee qaabiilow adiga waa lagaaga joogaaye gabadhan mataantee haabiil la dhalatay iska guurso gabadhan adiga kula mataantaana haabiil baa iskale sii markaasuu ma yeelayo markaasale haddaba maxaa dooni wuxuu hi sadaqad baan bixinaynaa ka sadaqadiisa ilaahay aqbalo waa calaamad ilaahay kaasaa u dhow gabadha quruxda badanna markaa kaasaa guursanaya buu yidhi marxaba labada ninna waxaa beeruhuu falan jiray oo qaabiil beerahayuu falan jiray beerihiisi wixii ka soo go-ay buu markaa soo qaaday zuruucdii iyo wixii usoo go-ay halkaasuu markaa ayaa la dhigay haabiilna markaa xoolo dhaqatu ahaayo xoolihiisiibuu ku noqday markaa goosmo ariyo aad u fiican buu soo qaado halkaabuu ku xidhay waa sadaqad dad fuqaraayoo sadaqada qaadanaya dhulkan ma jiraane laakiin cadaab baa xagga samada ka imanaya sadaqada ilaahay uu aqbalay buu markaa cadaabkaasi gubayaa baa la yidhi marka sadaqadii waxaa la aqbalay tii haabiil baa la aqbalay markaa haabiil dana haabiil wuxuu xaq u yeeshay marka horeba xaq buu u lahaa gabadhan qaabiil la dhalatay quruxda badan la inuu isagu heleen markaasaa lagu yidhi qaabiilow marka horeba waa lagaaga joogo waa lagaa saxsanaa haddana waa kaasoo sadaqadaadii lama aqbalina tii haabiil baa la aqbalay gabadha markaa isagaa le isaga u guri baa lagu yidhi markaasuu ma yeelayo haddaa maxaad samayn waan dilayaa buui isagaa baan dilayaaba dagaal buu ku qaaday walaalkii markaas qulu laa ilaaha ila allah
nalkaas damiyey kulligan waad jaysateen waa samey ya ilaahay khaatimada haynoo hagaajiyo cadaab alqabriga allah inaga badbaadiyo subxaana allah. daedna wuxuu ihi waan ku dili marka haabiil baa ihi may anu kula dagaalami maayo lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibasidin yadiya liaqtulaka inii akaafu allaha rab alcaalamiin buui haddaad adigu gacanta adii qaado anu gacan kuu qaadi maayo sababtu waa maxay anu ilaahay baan ka baqayaa buui ilaahay baan ka baqayaa kugu gardarooni maayo ku dulmin maayo waa ulaalahay dulmiga ilaahay ma jeclo waan ku dili aday ku taallaa halkaabuu ku dilay baa la yidhi. wa awalu man sannaha fi qatli الnafs bigayri xaqi waa ninkii ugu horeeyey arlada dusheeda jideeyey naf bini aadan in xaq darro loo dilo. waxa dad adduunka lagu dilaya xaq darro lagu dilayana isaguna dembi buu ku leeyahay, qayb buu ku leeyahay ila isaga dariiqaa jideeye. inuu qof bini aadana qudha uu ka jaro waxa dad adduunka dusheeda xaq darro lagu dilayana uu ku yeesho qayb uu ku yeesho maxaa keenay? waxa uu ka dhashay dembigaasi waa xasad. xasadkana waa anigii nii sheegay waa nicmada walaalka ilaahay uu siiyey oodu quri weyd oo tiraadid siduu nicmada ninkan u helaa. sidii buu isaguna naar ku galay. haabiil xaqdarra lagu dilay jannu galay. qaabiil maadaama walaalkii xaqdarro uu ku dilay dembiguna uu ka kacay maaragtaane xasadkii muxuu keenay? inuu aabihii amarkiisa qaadan waayo caaqil waalideyn noqdo, inuu sharciga ilaahay uu ku tunto, marka u dambaysana inuu noqdo qaatil. xasadku markaa waa arkaan alkufr bay culimadu yidhahdaan. ibn qayim aljawzi raximah llah wuxuu dhaha arkaan alislaam waa ka nebigu noo sheegay an tu'mina billah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir walqadri khayrihi wa sharihi min allahi tacala. arkaan aliimaan waa 6. arkaan alkufr gaalnimaduna arkaan bay leedahay. arkaanta gaalnimadu ku taagan tahay shirkiga ayaa kow ka ah, kibirka ayaa ku xiga, xasadka ayaa ku sii xiga, adabka ayaa ku xiga, adab carad ah. afartaasina waa arkaanta ay gaalnimadu ku taagan tahay. shirk inuu qofku ilaah u shariig yeelo, kibr inuu qofka mutakabir noqdo xaqaba dhagaysan waayoba uu xaqa qaadan waayo uu xaqu geli waayo isaga waxa uu isagu dadka waxa uu leeyahayna uu doono dadku inay la qaataan ay la fahmaan wixii xaqe loo sheegana ma qaato mutakabirku waa macnihiisu wacankaas wixii xaqe loo sheega ma gala isaga waxa isagu arkaayana wuxuu damcadadka inuu ka dhaadhiciyo. alxasadna waa kaa waan soo macnayna xasad zawaalu nicma waa adoo walaalkaa u tamaniya nicmadan ilaahay uu siiyey inay ka suusha isaga. deedna xaasidku waxau dhaliilayaa cataagii ilaahay buu dhaliilayaa cataa bixintii ilaahay uu khalqiga arsaaqada uu qaybiyey ama akhlaaqda uu qaybiyey ama quruxdii iyo awlaadda iyo manaasibta uu qaybiyey ayaad dhaliilaysaa oo waxay ka dhigan tahay adiga oo leh ilaahu addoonkani nicmadan uma qalmeen maxaad usaysa waad ku qaldanteen. algadab cadhaduna waa arkaan alkufr qofku inuu qof bini aadan o qudha u ka gooyo cadhada keenaysa. ninku reerkiisa inuu burburiyo waxa keenaysa waa cadhada. ninku inuu maaragtaane dadka uu dulmiyo xaqooda ku tunto waxa keenaysa waa cadhada. qofku inuu qofka walaalkii u caayo waxa keenaysa waa cadhada. lidalika nabigu sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa markuu u dardaarmayo saxaabigii nabiga u yimid ku yidhi yaa rasuul allah aniga ila dardaaran oo dardaaran isii. markaabuu nabigu ku yihi laa taqdab weligaa ha cadhoon. haddana uu ku celiyey mar labaad dardaaranka nebi allow ii dardaaran wuxuu yihi ha cadhoon. haddana uu ku celiyo ila dardaaran buu ku yidhi waxau nabigu ku yihi ha cadhoon buu ku yidhi. laanna cadhada dunuub waaweyn baa ka dhalanaysa qofku markuu cadhoodo. lidalika asbaabta cadhada biinaysa nebigu waa noo sheegay. hadduu cadhaysan adoo saro jooga haddaad cadhooto fadhiiso, adigoo fadhiya haddaad cadhootona jiifso, adoo bilaa weysaa haddaad cadhooto weyse qaada markiiba.
oo la weysaystaa. waayo nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi shaydaanka naar baa laga abuuray, dab baa laga abuuray shaydaanka, dabkana cadhada ayaa dabkana maaragtaanay waxaa baktiyey buu nabigu yihi biyahee markaad cadhootaan shaydaankiinii baa nigu kacay buu nabigu yidhi weysaysta buu nabigu yihi weysaysta. biyaha weysada weyse qaadatay shaydaankay kugu kiciya cadhada ayay baabi'inayaan. marka ilaahay waa gafuuru raxiim. cabdi ya bna aadam inaka maa dacawtanii warajawtanii gafartu laka calaa maa kana minka walaa ubaali. ya bna aadam low balagat dunuubaka canaana aلsamaa ثuma اstagfartanii lagafartu laka. ya bna aadam low aataytanii biquraabi اlardi khatiئة ثuma laqiitanii laa tushriku bi shayئa laqituka bimiliha maqfira. xadiisan qudsi macnihiisu ahaa waa kii ilaahay caza wajalla inagu lahaa ina aadanow haddaad adigu aada i baryaysid ood aniga i baryaysid intaad i baryaysid i rajaynaysid eed iimaan leedahay macnaha yaqiin aad leedahay ad igu kalsoon tahay dembi kasta oo kaa dhaca intuu doonay ha leekaadee u aabba yeeli maayo waan kaa dhaafi baa ilaahay kaa yidhi. hadday dunuubtaadu ay gaadho baa ilaahay yidhi fadka hadday gaadho fadka hadday dunuubtaadu ay gaadho oo dembi dhaafaad i weydiisatana waan kuu dembi dhaafayaa baa ilaahay ku leeyahay. haddaad maalinka qiyaamaha arlada muggeedu gafa adoo wato aad iila timaaddo laakiin aad ii timaadid adigoo aan ii shariig yeelin oo cibaadadayda cid kale aan ku lerna aad ii timaadidna dunuubta aad la timid ee intay la eg tahay in la egoo dembi dhaafaa kuula iman baa ilaahay ku leeyahay. waraxmatii wasicat kula shay. naxariista ilaahay baa ka bannaanan dunuubtaada. aayaddan qur-aanka qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah. sababa nusuulkeyga waxay ku soo degtay waa saxaabatu rasuuli illahi sal alla alay wasalam. fii musnad imaam axmed raximah llah waxa uu leeyahay wax shay ninkii nebi maxamed adeerkii dila xamse ninkii dilada aayaddani ay u soo degtay si uu u toobadkeenu diinta islaamka u soo galo haluma jar isku wada geeyo aayaddaa qur-aankaa saxaabaday ku soo degtay jiilkii ugu horreeyey ee ilaahay uu yeedhuu ku leeyahay yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim kuwii lafahooga ku xadgudbayow marna ilaahay naxariistiisa ha ka quusaninee soo noqda kuwa la leeyahay waa kuwii shirkiga soo maray weeyaan, waa kuwii jaahiliyadda soo maray weeyaan, waa kuwa qaarkood intay hub soo qaateen ay nebi maxamed dagaal ay kala hor yimaadeen weeyaan raggaas. aayadaha qur-aanku raggii u horreeyay ku soo degayaan innaka maaha, inaku dad muslimiin aan nahay. awowgaa waa muslim, ayaydaa waa muslima, dadkaad ka soo jeeda waa muslim, ilaa odayga ugu dambayd abtirsiinta aad ku ekaysiisaa waa muslim. walaakiin aayaddan qur-aanka sababu nusuulka saxaabatu rasuulillaahi bay ku soo degtay ugu horraysay soo maaha. ragga ay ku soo degtay ee la leeyahay yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim, yaa waa xarfu nidaa, ilaahay baa u yeeraya oo ku leh addoomihii lafahooga ku xadgudbayow marna raxmadda ilaahay ha ka quusanine. ilaahay caza wajalla naxariistiisu way ballaaran tahay, dunuubtoo dhanna ilaahay uu dhaafayaaye soo noqda ragga la leeyahay waa raggii gaalnimada soo maray weeyaan, waa raggii shirkiga soo maray weeyaan, waa ragga qaarkood intay col soo abaabuleen ay nebi maxamed dagaal ay kala hor yimaadeen. camar binu caas baa ka mid a, cikrima ibn abi jahl baa ka mid a, khaalid ibn lwaliid baa ka mid a, waxshayi baa ka mid a, cumar binu khadaab baa ka mid a. maalintuu cumar binu khadaab uu doonaya inuu soo islaamo waxa uu soo socday nebi maxamed inuu qudha ka soo jaro. cumar maalintuu islaamayey seeftiisii intuu soo jeeni qaartay, waa makaa la jooga maka, tirada muslimiintu markaa waxaa qiyaastii ay yihiin dhowr iyo 30 qof oo keliya wey muslimiintu. intuu soo dhaqaaqay sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu oo markaa muslimay oo islaamnimada qarsanaya cumar ka baqaya, cumar nin laga baqa buu ahaa, ayaa arkay cumar oo seeftii jeeni qaara. ya bna khadaab yaa cumar ilaa ayna, xaggeed u socotaa? wuxuu hi ilaa muxamed, muxamed baa ku socdaa buuli. maxaad ka doonay muxamed? ama isaga ama waa aniga buuli, labadaa midun baa maanta adduunka joogaya buuli.
labadeeda midun baa adduunka joogi ama isagaa joogi anaa dhiman ama isagaa dhiman adduunka ka tego anaa noolaan buui oo maxaad ka rabtaa waad u jeedaa buu ihi siduu dalkayagii dhibaatada noo dhex keenay ummaddii o dhan baas haysato adiga arkaya sacd ibn abi waqaas baa markaa yii oo maxamed maxaad ka dooni buu yihi maxamed waxaad u doonanayso aqalka walaasha maad hoos u eegtay buui aqalka walaasha diinta muxamed uu niila yimiday eed ka cabanaysaan sawta aqalka walaasha diintaasi ay gashay maadu ku yidhi waa sacd ibn abi waqaas waxau isagu leeyahay balaayada cumar nebiga un bal ka jeedi meel kale ku jeedi buu isleeyahay ila cumar waa nin laga boqa markaas oo dhib aada u dhib badan ma walaashay faatima ahaa walaasha iyo seediga saciid gurigooda diinta islaamku way gashay markiiba uu soo noqday baa cumar gurigii walaashii buu ku soo noqday sacd ibn abi waqaas wuxuu yihi markaa marka cumaroo ka jeestay nebiga xaggu u soo socday ayaan aniguna iska dhuuntay buui oo idhi wallahi waxaa doonaya ilahay kala bado marba haddaan nebi maxamed aan ka jeediya cumar sharkiisa gurigii buu soo galay faatima binta khadaab radia allahu canha iyo zawjkeegii saciid ibna zayd waxaa la joogay markaa khabaab oo suuratu taaha oo markaa nabigeena ku soo degtay ayuu markaa labadoodana qur-aanka aqalka dhexdeeda ku barayaa halkay diinta islaamku soo martay baleega halkay soo martay innaka alxamdulilah masaajid madaaris iyo macaahid bal islaama oo kaniisadna ku oolin oo dadka ay wada shahaadanayaan ayaa ilaahayna dhex joojiyey oo magaalada markaad maraysa aad maqlaysaa aadaanka min labada habeennimo ilaa iyo salaada fajr ayaad ku raaxaysanaysaa adinka dhawaaqiisa cumar walaashii buu ku noqday war baa iga kaa soo gaadhe oo maxaa yahay war diinteenii baad ka baxday yaa kuu sheegay waa la ii sheegay markuu dibadda soo maraya inuu maqlaya qur-aanka la akrinayo hunuhunuudaad meesha ku haysay soo saar buu ku yidhi waa qur-aanka ilaahay khabaab baa markaa u marinaya iyada iyo ninkeeda khabaabna waa saxaabigii waa raggii ugu horeysay awaail alislaam nabiga sal allau alay wasalam daartii arqam bin arqami nebigu uu ku jiraayo ragga markaa nebiga la jooga ee kolba nebiga aayadaha qur-aanka ee dushiisa ku soo dega ayuu intuu qaadabu markaa aqalada saxaabada markay waa makaa la joogaa ayuu dhuumasho intii uu taga buu aqalba xaafad buu kusoo akriyaayo dadka usoo sheega markaasuu cumar xanaaqay soo saar buu waxaad meesha ku haysay walaashii buu seedigii buu markaa ku booday uu dharbaaxala dhucu dhulka ku dhiftay markaase walaashiina ay ka daba hadashay markaasay ku tiri war ka kac waan ka baxnay diintaada baa tiri diintan shirkiga gaalnimada ku sugnayd adigiiyo dadkiina waaba ka baxnay tiri muslimad baan ahay ninkayguna waa muslim waxaad doontana samey bay ku tiri cumar waad samayn karto markuu hadalkaa walaashii uu ka maqlay dharbaaxu ku dhiftay baa laydhao afkayga ayaa dhiigay markaasay ku tiri waxa lee waxaad doonta samee cumarow waa kuu caddayn ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu aniga ninkaygu dad muslimiina ayaa nahay diinta islaamkaan ilaahayna siiyo waa ku noolaanaynaa waana ku dhimanaynaa kana soo noqoni maynaa waxaad doonta samee bay ku tiri markuu arkay casiimada iyo go-aanka walaashii ay qaadatay iyo dhiigga afkayga ka socda ayuu yidhi hadalkii meesha waxaad ku akriyayseen uuna ii dhib buu ku yidhi maxamedna had ku joogaay tus markaa bay ku tihi kuu dhibi maayo bay ku tidhi waa kalaamka ilaahay weeyaan kalaamka ilaahay adigana najaas baa tahay nin mushrika oo najaas ayaatoo kuu dhibi maayo bay ku tidhi markaasuu yidhi ii dhib buu yidhi inaan islaamnimada bartoon arkaan rabaaya kula arkee hadalkaa markay ka maqashay ay aragtay cumar oo isbedelo qalbigiisa naxariis ku soo degtay ayay ku tihi nin mushrika oo najaasa ilaahay kalaamkiisa loo dhibi maayo laa yamasuhu ila almutaharuun oraba horta soo maydho soo weyse qaado deedna markaasuu cumar soo qubaystay baa la yidhi deedna markaas hariggii markaa uu ku qornaa qur-aanku ayay u dhiibtay cumar bnu khataab nin ree magaala ayuu ahaa suuratu taaha buu akhriyey taah maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa ila tadkiratan liman yakhshaa
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إلى أواخر كذا آياتها أهر سورة طه. أي عمر بن الخطاب بشي سلقوا أخري إسقى آخر سنة إلا أنت أنا كقوم يسمارك ثاني إشيسا مرأة اللي يمركم عمر للميبو يري والله هذا البشر ماها هذا البني آدم وكوها الله ما هنا محمد يجي عليه الصلاة والسلام خباب رضي الله عنه عمر كان ميل كبه من الله قرنا أي مرأة اللي يمركم مغلى عمر بن الخطاب للمينيا كل الدواقي أولى أين محمد ما يجي يسوى مركم مغلي أي صابح عمر كان بقول أبشر يا عمر بشاريسو دعاء النبي محمد هذا ورا خميس ودعينا هذا دعاء فقود عبد بشاريسو كويري طوامح الدعاء خباب وحوري واحد بدا يكون مغلايي هذا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وساعده الذنب كل دعينا يقوله إله لبدا عمر مدكو دين الإسلام في إله كعز وكربقا اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر بن هشام والله ماذا نين قريش وقل رجل لماذا بدنيد وياه وقل قيس السماء وياه وقل رجل لماذا أتكيد وقل قلبك في عنابه هايين بالليل مركز النبي محمد وليه هاي إله الله ماذا عمر متكود دين الإسلام إله كعز يكوك ويكون إله دين توقوقا دين إلهي سيئا كروقا لنا لكن دبا إلهي كروقا هذا دين توقوق حديث كان محل لفهميا دين الرقبة يوباها انتهي دين الرقبة قال الله يوباها انتهي دين الرقبة النمى الله يوباها انتهي دين الرقبة علم الله يوباها انتهي دين الرقبة إذا أنك الله يوباها انتهي دين هو فعل تمام لابد عمر مدخل له دين تكره قلبه يدي بركة خباب وحول الدعاء ما دام النبي محمد بده يقالوا كم مغلاي هذا دعاء يخوض على البشارة يسبوا كل عمر مركز أورو قال النبي يقول عليه الصلاة والسلام عمر تاسع النبي الله بكر صلى الله عليه وسلم ولما مركوا الرسول قصوا قال لي هل كان النبي كجبوا ذي قال لي لأن هل كان النبي الصدق اسمه قبته وحكويري يا ابن خطاب أسلم يا ابن خطاب هنا خطاب وإسلام ودين الإسلام كالسوقل اللهم اهد عمر أبو النبي يقول هذا الإله عمر قلبي سعدها يسوج دي الدعوة والدعاء الدعوة لما أبو النبي عمر اسمه راعي دعوة ويا ري عمر سو إسلام وكيف اللهم اهد عمر أبو النبي هذا إله عمر سو هديه إله قلبي سعدها هي حق الرسول جيد حق إله حق الرسول كيس markaasuu ilaa maa tadcuu yaa rasuul allah waxaad iigu yeedhaysid idiin bandhigaysid ii sheeg buu ka yidhi deedna markaabuu nabigu u tiriyay arkaan alislaamka rukunadii ugu horreeyey iyo silatu riximkii iyo awsaanta iyo asnaamta cibaadadooda in laga tugo iyo shirkiga laga dhexbaxo ayuu nabigu u sheegay cumar halkiiba cumar ku islaamay saxaabadu nabigu takbiir bay ku dhifteen waxuu noqday ninkii afartanaad buu noqday islaamnimada ninkii afartanaad degeymisa afartan laakiin booskeedu cumar soo gaaray markii dambe booskii labaad buu galay yaa ka horreeyay bal sheeg abubakar sidiiq 38 nin buu cumar sidaa uga soo tallaabsado uu soo wareegay waa cumar uu abubakar isdaba taagay waliba abubakarna kama arina uu la tartamay uu gaadhi waayey mooyaane siiraday ku taalla iyadu xadiista rasuulka tartan raganimada nabi maxamed uu ku ogaayo ilaahay ugu baryaayay buu caddaystay cumar markiiba wuxuu yidhi xaq ma ku taagannahay haa baatil ma ku taagan yihiin haa oo xaqa maxaa loo qarin buu yihi bannaankan u saarayay 20 inaga laygu daro buu yidhi xamzana 19 buu ka haystaa la yidhi cumarna 19 buu ka haystay magaalada maka nina xaggaa buu ka soo galay nina xaggaa buu ka soo galay labada nin ee jamaacadada watay hor socdana waa laba nin aan lagu dhici karayn xamza asad ullahi wa asadu rasuulihi iyo cumar alfaaruq radia allahu an ninkii xaq iyo baatilka ilaahay sababtiisa uu ku kala saaray waa cumar labadaa nin baa labada jamaaca hogaaminaysa raganimadoodii xaqay u muujiyeen inagu raganimadeena halkeen geyna maanta yaa muslim raganimadaada adu halkaa dhigtay
reebel baana haybaa dariiqa la fadhidaa maxay reebel ku qabanayaan agtaadana taariku salaad inaa ka buuxee maxay reebel kuu qaban ummadii baad arkaysaa maalinba maalinta ka dambaysa ilaah iyo rasuulka kasii dheeraanayse oo reebelnimo maqaaxida la fadhida raganimadaada waxaa la rabaa inaad diintaada wax ku tarto diin baa ilaahay ku siiyey waxaad haysatay ilaahay adduunka dusheeda uu kugu siiyey inta aanan lagaa qaadin meesha saxda u isticmaal haddii aad meel qalada u isticmaasho waxaad ku dhici doontaa khasaaro uu qofku weliguuna ka soo kacay sagaal iyo tobankii nin walba uu kaxaysin magaalada maka sida ula soo dhex maray quraysh way yaabeen way quusatay khalaas kuwa ayaa hogaaminaya xamse kuwaana ayaa hogaaminaya cumar alfaaruuq markaasuu cumar leeyahay ayaana la hadlaya waa kane xaq baan wadnaa xaq naqulu laa ilaha ila allah amaamakum saasuu kule qurayshay waxaad qaadaysaanba qaada buu leeyahay laa ilaha ila allah baan ummadda u sheeganaaye wax kalaan sheeganaa habeenka islaamka cizi laguma horey islaamnimada cumar bn khadaab uu islaamay baa la yidhi nebi maxamed maalin uu ka farxad badna adduunka ma soo marin labada buurooda makee nebi maxamed uu dhex joogay maalin uu kaga farxad badnaa islaamnimada cumar ma soo marin baa la yidhi ragga marka hore ku taabaayo nebiga inay soo dilaan ee gaalnimadii iyo shirkigana soo maray ayaa qur-aanku leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah naxariista ilaah ka quusanina kaalay ah soo noqda ilaahay u soo noqda toobadkeena innakana markaa maxaad u malayn markaas dadkeena muslimiinta ee islaamnimada ku dhashay ee shaydaanka iyo shahawaadku iyo naftoodu ay ka qaalib noqotay ee macaasida ku jira waxay u baahannahay keliya in qofkan la xasuusiyo tawbadda la xasuusiyo bas oo la yidhaha ya muslim soo noqo ilaahay u soo noqo imaam malik binu dinaar raxmat ullaahi calayh ayaa arkay nin sakhraansan nin muslima oo sakhraansan khamri intuu cabbay khamrigii halkaa ay ka daadanayso meel xun oo wasakhana dhex fadhiya ismu jalaalana oo afkiisa ka soo baxayo allah 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 waa cajiib soo maa waxaan xasuustaa maalin annagoo jawlad samaynayna ayaa nin muslima oo markaas sakhraansan oo dhacdhacaya baan aragnay markaaba sida ayay eegeen ya sheekh war ya sheekhow qul kullun yacmalu calaa shaakilatihi farabukum aclamu biman huwa ahda sabiila bihud lakriya waa sakraan waan yaabay asalaamu calaykum asalaam bal war ma fiican taha waa iska fiicanahay buli nabi maxamed adeerkii markuu islaamnimada u bandhigay wuxuu ku yidhi ma xasuusan tahay buu iga yidhi markaasaa kuli ii sheeg inaka laa tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa wuxuu hi anigu khamri baan hadda soo cabay bu ihi sheekhow haye waxaa laga yaabaa berintoola inaan adiga kaafeen adarku aan dugsaday ma dhici kartaa way dhici kartaa baan ku yidhi insha allah ilahayna waa qaadir inuu kusoo hadeeyo haddaba iska soco bu iga yidhi waan iska soconay markaa anaguna ubashirikum waxaa nii bishaareynaya ninkii maanta waa ducaadda weeyaan wallahi waa ducaadda wallahi baa ku dhaartay mana sheegay magaciisa ubashirikum malik binu dinaar wuxuu arkay nin sakhraansan oo meel xun fadhiya oo sakhradii ay la gashay inuu yidhahdo allah allah sheekhu uu dhaafi waayey markaas wuxuu i maxaan u qabtaa bal wax kale u qaban kari maaye magacan ilaahay ee sharafta leh afkan uu ka soo baxayo un bal dhareerkan ka daadanaya iyo khamrigan iyo waxaan un ha ka biyisi cimaamadiisii sheekhu intuu iska qaadan uu ka biye ba layihi saa uga biyey
وقف فريس مرقى أبو الشيخ وأنا صخرة سنة كيدا أكو كم صاحب مسكتي هذا كي مصح شيخي هذا كي مصح لي منام بالغويري سداد أدو غير المجع إلهي أبو حرميسي أذكر المجع الله كسر بحيا خمر جبلك أبو قبل سي أيانا نكون قلبي سي خمر وقبل ندلي سنة وكذا أفضل الغويري الله أكبر مساجد كنت لي وهو أركنكم مسكين يقول أحد دعاء سنة ويتوبت كالي فضيل بن عياض رحمة الله عليه هلكوك صوب لا بهداية هلكوك صوب لا قاطع الطريق بوها لسبوها توب دتك جدكوية السمايو دتك دعبوها آيات القرآن كو أركنين بل يروا آخرنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية آيات القرآن ورميين قارن إن دتك مؤمنين تا إسلام لماذا كل شيء إنه قلبه خشوع ميين قارن وإلهي حسكيسا إلهي عظمتي سيتي حصوصاني آيات كيس قرآنك ميين قارن إني عرصدان آيات دامركم مغلي قول الميال لي مركز الآن والله ويقارن يقول خلاص إلى دورما كجر يقول تبنمو وإلهي عن عاصم والله ويقبل لنبور دتك ميسا كو هايستينا وحي حولو كدعي بو سيي isaguna masaajidkuu galay caabid buu noqday zaahida ilaa markii dambe la oran jiray waa caabid alxaramayn wuxuu ahaa nin lix biloodna maka ilaahay ku caabudo ayuu noqday 6 biloodna madiina ilaahay ku caabudo buu noqday markii dambe ummaddu toobada u baahan tahay ummadda toobada in loogu yeedhaa loo baahan yahay عيرجع ما عند المسلمين أي تبنا يعني كجران وحاكيني وكسرة الذنوب تبدت أمر دبر ديراتي وأن نجد حينين وحاكيني والذنوب تبا فربدت بقالنا هي حروب صلوا نقولنا أمة من والد كجر تعداد أردته وحاكيني والذنوب تبا فربدت هذه دتك شعوبته هذا إلهي وصل لغته وأي توبت كنتو عجيرك إلهي كساريا أبارت إلهي كفيديا إلهي تبارك وتعالى مدح ونكسب وطلب وقديبيا مال بركة سنبا إلهي سينيا أغنياء وحا إلهي وأغنياء دون وحا وكيا ليا كوبر الله وفقروا وكوها يبا إلهي كيا ليا دولة العباسية حل جدي أيا بغداد وحا هيسنة يمين رجل متوكل dadku aad u dhibay xoolahoodina uu ka dhacay beerihiina uu ka qaatay wixii fiican ay haystaan uu ka qaataa laakiin ninka waxa la dhalatay gabar wanaagsan oo saalixada oo la oran jiray Nafisa ayadoo maalmaha kamida magaalada dhex socota ayaa shacabkii baa markaa arkay gabadhii bay markaa ku dacwoodeen waxay ku yiraahdeen walaalka oo amiirkii wadanka xoolahaygii buu naga qaatay oo beerihii buu naga qaatay oo wixii fiican baan ugu fiican yihiin buu yiri maxaa ka yeelaa adaan ku sheegaynaa aduu ku maqlaaye aduuna ku jecel yahay ku ixtiraamo waa walaalkaaye u nasteexay oo nagala hadal dulmiga dhibaatada naga daayay سأفعله بيكوته وان يلدون إن شاء الله أيكو هالكي اللي تاجن أيا بقر كذا هالكي صوم ربنا ولا قلبنا بقى بقر كذا عينه كي سكوي هذا ولا شاب هالكي تاجن وكسر الله يحذي بقى سويه مدي تذكي ويفرح وحيد هذا إلهي باب الله ما يسكت صور لويه عبشة اللي هدى وجد بلو وين قال هاليوم وحي أو نبيه يسوي وليعني marka laba eray bay isweydiisteen iyo isweydaarsadeen balleeyay waxay ku tiri lima marka buu ku kama dana waa kala dhaqaaqeen markay kala dhaqaaqeen boqorkii kan labday
ayaa dadkii ku soo xoogteen gabadhii boqoradii waxay ku dhahdeen waa kan ilaahay baaba kuu soo dhaweeyey ninkii aan kaaga cabanayne maxaad ula hadli weydood fariinteedii aad u gudbin weyday waxay tiri waa nigii la hadlo asaguna sawku ii jawaabay maa markaasay yidhahdeen oo maxaa istiraadeen lima iyo kamaa unbaad istiraadeen waxaan ku idhi lima tadlimuuna annaasa maxaad dadka u dhacaysaan maxaad dadka xoolahooga u qaadanaysaan maxaad masaakiinta u dulminaysaa wuxuu igu jawaabay kamaa waxay ka dhigan tahay kamaa takuunu yuwalla calaykum waxaad ku tidhahdaa sidaad idinku aad tihiin unbay madaxdiinuna noqonaysaa ku dhan buu ku yidhi haddaad hagaagtaanna way hagaagayaan haddaad xumaataanna way xumaanayaan waa wax isku xidhan haddaan toobadkeenno nidaamka ilaahay baa gacanta ku hayo bini aadam nidaamka adduunka gacanta kuma hayo dadku hadday toobad keenana ilaahay u soo noqdashooda asagaa bedelaaya ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ummad ilaahay nicmaduu siiyey kama qaado ilaa iyakoo iska qaada mooyaan ummad xaaladay ku jirto ilaahay kama bedilo ilaa iyakoo xaaladooda bedilo mooyaan waxay culimmadu leeyihiin laa taqacu lmusiibatu ila bidanbin walaa turfacu ila bitawba masiibo ummad kuma dhacdo ilaa dembi ay geysanay masiibadaa ku timiday ummad ilaahay masiibo kama qaado kama rafaco ilaa toobadunbaa ilaahay masiibada ku rafaca tawba saa darteed natuub ila allah ilahay aan usoo noqono ibnu fadayl bana cayaad allah u naxariistay baa ohan jiray bukaau nahaar yamxu dunuub alcalaaniya wa bukaau lleyl yamxu dunuub asiri buu ohan jiray dunuubtu waa laba dembi mid waa mid qofku dadka hortooda uu ku galo weeyaan midna waa dembi isagu u siraysto oo ilaahay unbaa ku og hadday dadku maalinkii ay ilaahay hordhigaan gacmaha oo ay ooyaan oo ilaahay toobada ay weydiistaan buu yidhi dunuubta dadka hortooda ay ku galeen ee lagu yaqaana ilaahay ka baabi'iya hadday habeenkii saacadaha dambe ee ilaahay casa wajalla samada adduunka uu imanayo uu leeyahay ayaa waxay weydiisanaya hansiiye ayaa toobadkeene toobadda han ka aqbale ayaa dembi dhaaf doonay dembigiisa han dhaafe haddii habeenkii saacado ka mida qofku uu kacu ooyana dembiga uu siraystay ilaahay mooyaane cid kale aysan ku ogayna oohinta habeenkii baa ilaahay ku dhaafaa buu yidhi ilaahay hanu soo noqono attaa'ibu min addenbi kaman laa damba lah qofka dembiga ka soo noqday waa sida qof bilaa dembi oo kale laba marxaladood inta naftu aynan gaarina hadduu qofku soo noqdo ilahay waa usoo noqon dembigu intuu doonay ha leekaabo ka dembiga dhaafaya maaha makhluuq waa ilaahay haddaad ilaahay u soo noqoto toobad keentid toobaddu laba marxaladood ka hor hadduu qofku soo noqdo ilahay toobadda waa ka aqbalaa hadday cadaabdu ka soo noqoto halkay ka dhacdana albaabku uu xidhmayaa hadday naftu halkaa un guriga iskugu soo ururtana toobaddu xilligaa qofku way ka xidhantaa buu rasuulku yidhi marka ilaahay aan usoo noqon oo maxaa ka toobad keenaynaa salaad la-aantaan ka toobad keenaynaa diin la-aantaan ka toobad keenaynaa gafladaan ka toobad keenaynaa qabyaaladaan ka toobad keenaynaa macaasidaan ka toobad keenaynaa maala fasaadkaan ka toobad keenaynaa akhlaaqda xun baan ka toobad keenaynaa fadhiga xunay meelaha xun fadhiisanayno ayaan ka toobad keenaynaa dadaal la-aanta diinta dadaalkayga aan u kici weynay ayaan ka toobad keenaynaa bal in taariku salaadu bato in macaasidu badato in zinadu badato in beentu badato in khamrigu meel walba uu galo in zinadii fisqiga iyo fujuurku iyo xagti iyo baqdaagu ay badato waxa dunuub badanaysooda waxaa keenaya waa tarku dacwa ummaddu markay dacwadiiyo shaqada diinta ay ka tagtay ee wax u yeedho u nasteexeeyo ay weyday dacwadii shaydaan baa ummadda ku dhacday markaas deedna ummaddu shaydaan baa raaceen walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqan min almu'miniina baa ilaahay yidhi laba dacwadood baa adduunka isgarab socday ogow dacwatu lxaq nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa imaamka ahaa nebigeenna ayaa imaamka ahaa dacwadda xaqa iyo dacwatu lbaatil
دعوة باطل لإبليس لك معلم يا شياطين يا منافقين إبليس يا شياطين يا يهود يا النصارى يا منافقين علمانيين انت صدوا ويان وجنود إبليس ويان وجنود إبليس أجمعون وكيلا القرآن فقشة إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا بإلهين دعوة حقا مركبا محي والدعوة إلى الله عز وجل ومدى الحق إله اللوية ومدى توبة اللوية ومدى المساجد اللوية ومدى إسلام لمدى اللوية والمسلم باطل والمسلم لمن ملك هو سيسهيلين هو سوقد هذا الإسلام لمدى هذا الإسلام لمدى أصمرتب لان قابنا تهي لكن لان ديرا واحد كتهي مسلم مركا تهي هل بليون يتضبط بقولهم مليون مسلمين أدوية الدافئة كنون أيا ولا لها يا إلهي باري إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو مسلم هو سوقد هذا الإسلام لمدى إسلام لمدى سأمرك هذا الدين ليس أخلاق ده ونكسر ما نبض أبويا لنا أخلاق دي نبينا عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم marka dacwada iyo dadaalka diinta ma aha culimada kaliya waxa kar laga rabo oo kaliya may mas'uulin baan ka nahay diinta kulligan wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin wa innahu ladhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'alun qur'anka ilahay ku sheeg wa sawfa tus'alun wala nidinuna maxaa diinta islaamka aad u soo qabatay lagu oran doonaa حدث سوق قبض ما حكوا سوق كرديس علمي عقلي رجنمدي وقتي بقالها جي دلنا يرمنا هذه هالكيد دكتي ماشي لو قلت لك قلبات واستعماش مثلا لو قال هو استعماش ثم لا تسألون يومئذ إن شاء الله تعالى إن دين تدل كيجا كخيب هذا النوع on toobad keeno oo dadka toobada ugu yeeno oo gacmaha isqabsano oo ku shaqeeyno wa'tasimu bihablillahi jami'an insha Allah hada insha Allah hada Allah na nawafaq hada wabillahi tawfiq Sheikh Abdul Qadir Abdurrahman Baayir ma qadar insha Allah Allah nawafaq hada dadman ma jiro muhiimada goobta la isku yimi waxa weeye inaynu isbedel la nimaano انتي نالكا فرديدا ومسؤولين وضيال اخيار علمادي انت هو لا فرديا لكن waxa la doonaya in uu isbedel halka kala kacno laba arrimood wayna kala faahno diinta iyo shaqada diinta waa laba shay aan kala maarmin beerta shaqada beerta farmasiga shaqada farmasiga dukaanka shaqada dukaanka والله ما شاء الله كلام مارك دين تشغل الدين مرة واحد شوي دين إيشا أنا أقول دين تهلكين كجلي كلام كشغين كلام قف ولما دين تن أتقال اللي جمتكين مسؤولية الدين توالى إنك جمتكين لما إنك أضيقة دين تمسؤول بكية هاي علماء ذكريا تين دين تلوح يا جماعة علماء السجارة يقول مسؤولين لكن مسؤولية وين وضع صارتها هاي إني ورا واحد شو قياسته سورة الرجال سورة العصر إلهي يقول شيء سبحانه وتعالى إلهي يقول هذا زمنك أما عصرك بني آدم كسيد يقول لي هاي إنه خسارة بكتشله سيد يقول لي هاي جميع الإنسان ربوذا يدمر كوذا إنه خسارة كتشله إلا أفرق منه يعني أفرتها haddii laba laga helo boqolkiiba 50 mad khasaara ka baxday haddii saddex laga helana boqolkiiba 75 mad khasaara ka baxday tusaalahan iimaan baa laga helay la ilaaha illa allah ku dhawaaqday afartii mid kamid ah haysa iimaan khasaari boqolkiiba 75 baa ku jirta ma a'maasha saalihaad ku darto salaadii baa soo tukatay masaajidkii baa timi nin fiican baa tahay laakiin waxa la ogaataa khasaaraha إلى المريك وشرته بقول كيف كنت ما يوافي عنه أعمال صالحات كذا ولا ترى قدرتي وتواصوا بالحق ودعوة إلى كذا قالتي خير في يعماشي ولا كسنين بس كذا قالتي دلالتي دي ده كذا قالتي وافي عنها
laakiin waxaad ogaataa weli khasaarihii waxbaa kaa dhiman markaad sabirka ku darto ila dacwadda dhibaato badan baa kaaga imanaysa wax badan baa maaragtay inaad dalka isu taagto dadka aad u tagto dhibaato badan baad kala kulmaysaa markaa 100% markaas horta khasaaraha ka baxaysaa qof waloo imka isweydiiyo ma 100% konton baad khasaari ka baxday ma 7 baad ka baxday mise 100% qof waloo istiyaas aad daawo suurat al-asr ku qiyaas zamankii hore khayr badan baa jiri jiray in dadka masaajidada ay fadhiistaan baa jiri jiray maanta isbedel weyn baa jira isbedel weyn jira waxa weeye culimada cid wax ka dhigata oo male kitaab baa la bilaabayaa khayr baa la isu sheegayaa wax yimaada way yaryihiin nin kitaab dhamaysanayana waa yaryahay marka beriga wax la isweydiin jiray war inna wax iimaankeena wax ziyaadiya iimaankaagu hebelo ma ziyaaday anu waaba ducfi baaba naftiga haysaa ayaa la isweydiin jiray waa la iskala tegey waxa la isweydiin jiray war kitaabkii laynoo bilaabay ma dhamayne waa la iskala tegey su-aalahaasa beriga la isweydiin jiray oo iimaankaagu halku taagan yahay war kitaabkii laynoo bilaabay ma dhamayne cilaaqaad masaajidka ma la leenahay wallahi ducful iimaan baan dareemaya khayr badan saasaa la oran jiray imikana su-aasha ugu horeysa dadka ugu wanaagsan waxay isweydiiyaan mataqaana hebel mise xaasad baad leedahay la isweydiiya hadda mise xaasad baad leedahay maxaad lacag haysataa maxaad tijaara maxaa bangiga kuu jira ayaa la isweydiiya ummaddii markaa tihi baa ku dhacay maanta ummaddu tiha waxay kaga dhici kartaa in dadaalka diinta qof waliba halkiisa ka soo noolayo diinta inaad xaqla ku wadaa la doonaya ma aha inaad tidhaahdo mucaawin baan ahay ninka mucaawinkaa uu iska tegaya imika intayna halkaa fadhiya hadii la yidhahdo gaarigaa aynu riixno nin baa gaari u istaagmi waaye hala riixaa layidhi waxaan rabnaa inuu istaagmo waan riixnay waa istaagmi waaye dee waan iskaga tegayna ilaa gaariga malihine laakiin ninka gaariga iskale odhan maayo ana waa idin raacaya wuxuu leeyahay maya waa in dul fadhiyaya ilaa uu ka hagaagayo waayo waa xaqlayso inagu maanta diinta saasaa ku wadnaa maanta diintii waa la isku tuurtuulay odayaashu waxay dhahay diinta waa fiicanta inaan ka shaqeyno laakiin mushkilad kaan jirto nimankaa dhalinyarada imika soo kacay diinta ha ka shaqeeyaan dhalinyaradina waxay idhaaheen koob shahba maanaan cabina maxaan diin ka shaqeyna ilaan sidaa oo hebel noqdo laba gurina dhisto laba xaasna yeesho carruurna yeesho dhaqaaqi maayo anugu arrintaa waxa la doonaya in baycaddaa lasoo nooleeyo cabdillahi ibnu mubaarak 6 biloodan diintu ka shaqayn jiray 6 biloodan mucallim buu ahaayo nin dadka waxbaro ayuu ahaa 6 biloodna muhaajir buu ahaayo dadka ayuu dhex mari jiray sidaa daraaddeed kula wanaagsan baa idinka muuqda khayr badan baa idinka muuqda waxaa la doonayaa maanta inaynu isbeddel la nimaadno waxaan kusoo gabagabeynayaa nin baa maalin dhawad aan axwaal ka qaado oo waraystay ninkaasu khuruuj buu ka soo noqday 4 bilood buu soo dhamaystay xawaashan ka qaado maxaad ka shaqayn jirtaan koodi weli waxaan ka shaqayn jiray baalkan khamriga la yidhaaho markaan xaaladiisii arkay baan isin wal ninkaan iska warayso khamrigaan ka shaqayn jiray buuli marka sidaan uga shaqaynayay baa ilaahay khayrkana waafajiyey waan toobad keenay buuli waan ka baxay khadka ma garata $10,000 oon haystay oo khamriga ka haystay maalin dhaweyd baan dab baxaya ku riday buuli gebigeediba dab baxaya intaan dab shilay baan 10,000 ku riday waxaan ku yidhi maxaad ugu riday si kalaa looga faa'idaystaa lacagtu hadday xaaraan tahay xataa siyaabo kale waxa jira looga faa'idaystee maxaad ugu riday wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaanan dib dambe u eegin meesha oo aanan xaaraan dambe $1 inaan iga soo gelinayn maanta aan xataa dharka aan xidhanahay waan walaasha bay iibisay khuruujkana walaasha bay iga bixisay isbeddel weyn baa ku dhacay ninkaasi wuxuu ahaa nin diinta wax ka yaqaana wuxuu yidhi waxyaalaha la yaab kale uu sheegay waxaa ka mid ah wuxuu yidhi marka aan kaantaroolada iyo meelaha isbaarooyinka marayo yaasiinkan akriya jiray buuli wajacalnaa min bayni aydihim saddan wa min khalfihim maan ku mari jiray meesha yaasiinka waa nin diintii wax horta ninkii maanta waa maadinay diinta allah rusulah midha masaajid buu imika haystaa ninkii isagaa masaajidka eedaano maalin sheekha la waayana isagaa dujiya ilaahay noloshiisii buu ilaahay bedelay markaa diinta waynu dhegaysanaynaayoo halkaas aynu fadhiyaynaa ma soconayso ummad badanoo halkan joogtaa waxaa jirta cid u tegaysa aanay jirin maqaaxidii markaad tagto 60 jirkii 70 jirkii 90 jirkii 100 jirkii baa fadhiya 30 jirkii baa fadhiya oo jaal cunayo balwadii dhex fadhiya cid u tegaysana male intee naas halkaa joogtaayna qof waliba halkiisu isku qanciyey isbeddel baa la doonaya inaynu maanta la nimaadno insha allahu tacaala khayr badan baa idinka muuqda arrintaasi masaajidada way ka socdaan culimadii way dadaalaysaa
inaynu isbeddel la nimaadno. ummaddu iyadaa isbeddesha, ummaddu iyadaa isbeddesha. haddaan rabna inay wax isbeddelaan, qof walba iminka qof u canaananaya, qof walba qofku canaanan. adigu horta wanaagga gurigaaga ka bilow, adiga noloshaada wanaagga ka bilow. sidaa daraaddeed arrintaasi meel fiican bay maraysaa, khayrkiina waa inoo bilaabmeen. inaan diinta ka shaqeyno dhammaan diyaar mana insha allah. baryahan mustacidiin baa la yidhahaayo geedkaana lama gaadheen. nin baa odhan jiray mustacidiin, marka la yidhaha mustacidiin, markii dhan baa la yidhi mustacidiintaada way badatay, maxaa diyaar tahay? waan camilaa buuri anugu, camilaad bay iga tahay. marka horta camilaada socon mayse, dee inaan isbeddel darin mustacidiin ma naha. sheekh duaa. بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dembigeenna allah ha dhaaf, dembiga waalidiinteenna allah ha dhaaf, diinta allah inoo macaneey, maralkeenna allah ha shaafiyo, mawtaadkeenna allah u naxariisto, amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo, dhallinyaradeenna wiilaliyo gacdhuba allah inoo hanuuniyo, madaxdeennana wixii diintiya dalkiiyo dadka u dhan allah ha tuso, abaartana allah inaga faydo, samada roob qayrqab allah inooga keeno, dhulkana qaysqayrad allah inooga soo saaro, toobadana allah inoo furo, toobadda allah inoo furo, albaabada naxariista allah inoo furo. addoommo waxaan nahay dembiilayaale, ilaahay sida isagu yahay hanagula tacaamule, sida annaku aan nahay ilah hanagula tacaamulin. allahuma akfir lana dunuubana waisraafana fi amrina, habit aqdaamana wansurna cala alqowmi alkaafiriin. allahuma asqina algayta walraxma walaa tajcalna min alqaanitiin. allahuma asqina algayta walraxma walaa tuhligna bisiniin. allahuma ina nasaluka alcafwa walcaafiya, mucaafaata daa'imata fi اddiini waاdunya wاlaakhira. sala allahu